saaxiib yaal kusoo dhawaada muuqaalkeena oon kusoo qaadan doono types of RCC columns noocyada kala duwan ee columnska inagoo markaasi ka eegayna dhanka loadingka ama culeysyada lasoo saari doono. Nooca koowaad waxaa la yidhahdaa axially loaded column. Waa maxay marka axially loaded column? Waxaa lagu yiri markii resultant of the load waa culeyska guud ee columnkeena lasoo saaraa. Culeyskaas wuxuu ka imaanaa slabkii iyo beamkii culeyskoodii oo isla jiro oo guud ahaan haddii uu ku beegmaa lagu dhahay coincides haddii uu ku beegma ama uu ku aado centroid waa bartamaha center of gravity waa lahaa okay bartamaha wuxuu ku aadaa hadduu ku aadaa lagu dhahaa bartamaha cross section waa areada of a column okay waxaa lagu dhahay culeyska guud ee columnkeena lasoo saari doono haddii uu ku beegmo centroidka waa bartamaha ah centroidka bartamaha columnkeena hadduu ku aado waxaa leenahay columnkaasi waa axially loaded magac kale loo yaqaan maxaa la yiraahdaa concentrically loaded column okay so marka waxaad dareemaysaa haddii columnkeena sidaan uu yahay cross sectionkiisi waa kaas aha b h tiisina waa tanaha b diisina waa tanaha waxaa jirta bar dhaxaad oo la yiraahdo centroid okay waa barta cabir ahaan marka la fiiriyo guud ahaanba columnkeena centerka u ah okay haddii halkaas uu ku beegmo columnkaas waxaa leenahay axially loaded column okay ama waxaa leenahay waa concentrically loaded column okay columnyada noocaana marka waxaa lagu dhahay waa rare waa naadira lagu dhahay in dhismayaasha inta badan lagu arko aan isla aragna marka sawirkiisa meeshaan waxaa ujeedaa laba axis uu leeyahay columnkeena okay columnkeena waa kan aha sectionkiisa okay kan مثلا isaga soo qaado x axis inuu yahay okay kan inuu yahay y axis okay so marka maxaa ujeedaa marka bartamihii ayuu dhacaa culeyskii okay culeyskii compressionka ahay wuxuu ku aadan yahay markaan sababta marka axially loogu baxshay marka maxay tahay wuxuu ku aadan yahay axiska it passes through the axis of the column okay that's why loo dha axially loaded marka lagu leeyahay concentric marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa y iyo x anagoo u fiirinayno bartamahooda okay ayuu dhacay macnaha meesha centroidka u ah okay oo intersectionka ayuu ku dhacay markaasoo kale marka maxaa leenahay loadkeena wuxuu concentric ku yahay centerka oo columnkeena okay so marka hadda maxaan isla soo ogaanay columnkan haddana pointiga kale loo sheegay wuxuu ahay columnkan inuu yahay rare okay naadir waa rare u noqday wuxuu rare u noqonaa 100% ma dhici kartaba pure axial wax la dhaho ma dhici karaanba bataatanba sababtoo ah dhismaha markastaba wax kasta iskuma aadaan waxaan waa baahida qofka clientiga iyo ma aragtay naqshadii wax ku xiran waay wax oo ma aragtay adiga iska samayn kartid ama isku aadi kartid ma aha mathalan columnyada category-gan lagu xisaabiyo waxaa kamid ah columnyada la dhaho interior columns okay maxaa column dhexda ku jira halkan beam ka xigo halkan beam ka xigo okay halkan beam kala ka xigo okay isaga dhexda ku jira yani hadda okay halkan column kala ka xigo dabcan okay so marka anaga column-kan inuu interior u qaadano okay column-ka marka si aan u dhahno axial ahaan ayaan u design gareynaa waxaa ku qasban tahay 3 shuruud inaad fuliso kow beamkan iyo beamkan waa inay isku isbaan ahaadaan yani cabirka lengthkooda waa inuu isku mid ahaadaa okay isbaanka waa inay iskaga mid ahaadaan horta kow okay waxaa kaloo isaga mid noqonayaan culeyska soo fuulayo okay culeyska lasoo saarayana waa inay isku culeys yihiin okay same load waa inay xambaarayaan okay qodobka labaad waa qodobka saddexaad waxa waa labadan beam waa in cross sectionkeedu isku mid ay noqdaan okay so markaas labadaas beam waxaan dhihi karnaa way iskansalayaan hadhow oo momentiyaasha ka generate garoobo oo columnka ay ku sameynayaan waxaan leenahay momentiyaasha ka generate garoobo meeshaas way iskansal gareynayaan ama way isbalance gareynayaan okay sidoo kale intana sidaas oo kale laga rabaa same span okay ee laga rabaa loadka in isaga mid noqdaan la rabaa okay loadka in isaga mid noqdaan ayaa la rabaa sidoo kale maxaa la rabaa sectionkan in isaga mid noqdaan ayaa la rabaa marka intaas ay dhacdo columnkan marka beamskan waxa support garanayo columnka okay column waxa isku dayaya marka inay hadii ay jirto maxaa la dhahay kala badsanaasho dhanka momentiga ah oo hadaysan sineen waxa dhacayso columnka dhinacuna yani moment ka sameeyo okay laakiin hadii ay siman yihiin oo isku culays isku isbaan isku maxaa la dhahay cross section ay yihiin momentiska meeshan ka generate garoobayo way iskansal gareyn doonaan okay columnkan oo kale waxaan leenahay waxaa loo design gareynaa inuu qaadayo kaliya axial load culayska axis-kiisa ku dhacayo oo compressionka ah inuu qaadayo kaliya ayaa loo design gareynaa nooca labaad waxaa la yidhahdaa marka uniaxially eccentrically loaded column okay labadan dambe waxa ereygan eccentrically wuxuu cagsi ku yahay concentric yani hadda waxaa ogeen markii halkan x axis ay tahay intana ay tahay y axis columnkeena wuxuu dhacay ama culayska columnkeena la soo saaro wuxuu dhacay geometric center okay balse kan sidaas ma aha concentric markuu dhaxayo centerka ma dhacayo okay intaas ilfaan centerka ma dhacayo okay columnkeena sidaana hadda leenahay okay
y axis iyo x axis so marka lagu dhaho uni horta axial waa soo barano axisku ku aadan yahay uni means 1 okay uni maxaa laga wadaa 1 ayaa laga wadaa waxaa laga wadaa hal axis ayaa eccentric ah kan kale waa concentric saas u fahan labada midkood oo noqon doona marka wuxuu ku dhahay markii culayska eccentric loadka ah uu dul saaran yahay either x ama y uu saaran yahay okay tusaale ahaan marka waxaa ka dhigaynaa inay dhinaca x tahay okay halkaasaa dhigaynaa culayska okay culayskii halkaas ku aaday maalan okay culayskaa meeshaas ku aaday eccentric marka hadda muxuu eccentric ku yahay x axis laakiin dhinaca kale y haddaa u fiiriso still centerkuu joogaa fiiri y haddaa fiiriso still centerkuu joogaa balse x haddaa fiiriso dhinacu u badan yahay oo dhankaan u badan yahay balse kan still wuxuu joogaa centerka soo marka labada axis mid ka mid ah ayuu eccentric ku noqonaa culayskii okay soo marka dhinaca eccentric uu ka yahana mar kasta maxaa ka generate garooba oo ka imaanaya moment okay moment x ah ayaa ka imaanaya hadba axiska uu saaran yahay okay soo marka moment ayaa meeshaas ka generate garoobaya okay marka maxaa loo design gareynayaa hadhow marka la design gareynayo in momentahaas la iska difaaco momentahaas in designkiisa la sameeyo oo berihii iska celin lahay in loo sameeyo muxuu ku dhahay marka this loading method muxuu ku dhahay use in the case of edge column columnada noocan kale waxay dhici karaan markii edge columns la joogo okay kuwaasoo si rigid ah si adag la iskula xiray beam from only one side okay asla aragna marka columnka aan ka hadlayno horta waa kan ahaa uniaxial okay marka maxaa ujeedaa meeshan axiskan tusaale ahaan x iska dheh okay x iska dheh axiskan kalena waxaan leenahay y iska dheh maalan culayska marka xaguu dhacay waxaa jirto sida aa ujeedidba inuu eccentric ku yahay okay waxaa jirta there is some distance from the center of the column okay center distancegaas marka maxaa loo yaqaanaa e oo eccentric ah soo marka maxaa og tahay haddii distanso iyo force la helo maxaa meesha ka dhacaya waxa la dhahaya moment okay moment labadaas ku samaysmaa soo marka meeshaan hadhow moment ayaa ka imaanaya okay moment ayaa ka imaanaya meeshaan columnada noocaana marka xagee ka jiraan waan kuu sheegay edge columns tusaale ahaan halkan column ayaa noo yaalo okay sidaan noo dheh halkaana column kale ayaa yaalo halkaana column kale ayaa yaalo okay meeshaana beam ayaa yaalo okay columnka noocaan oo kale ah marka uniaxial waa la dhihi karaa waa goorme haddii beamkan iyo beamkan isku span isku load isku section ay yihiin momentiskoodana ay iscancel garaynayaan tusaale ahaan axiskan adiga waxay u qaadataa inuu x yahay axiskan kalena inuu y yahay u qaado okay soo marka maxaa dhacayso keliya beamkan wax balance garay ma laha ilaa beam kale inta ka xigo balance garayna ma laha soo marka halkan axis ayaa hadhow eccentric uu ka yahay oo momenta uu imaan doonaa momentahaasna hadhow qaabkii la iskaga resist garay lahaa ayaa hadhow designka lagu xisaabtamaa okay sidoo kale waxaa dhici karta asoo interior ah markuu interiorka yahay sidaan oo kalena way dhici kartaa waa goorme haddii labadan ay iscancel garaynayaan laakiin labadan aysan iscancel garaynayn tusaale ahaan unequal span oo kale hadday leeyihiin ama load kala duwan uu soo fuulayo hadhow moment waxaa imaanaya difference ah okay difference in moment imaanaya soo marka hadhow hal axis waa marka hadhow meesha culayskiisa loo design garaynayo okay inaa isla fahanay ayaa isagana rajeynaya nooca saddexaad waxaa lahaa biaxially eccentrically loaded column kan muxuu ahaa uni 1 hal axis ayuu eccentric ku ahay kan maxaa waaye waa 2 labada axis ba eccentric uu ku yahay macnaheedu marka maxaa waaye columnkeeni markuu sidaan yahay halkan y axis halkan x axis culayska wuxuu dhacaa meel labadaba distance u jiro okay culayskiya xaggaan dhacay maalan soo marka muxuu u jiraa distance wuxuu u jiraa y axis distance oo e ah ayuu u jiraa okay dhinacaana muxuu u jiraa distance oo e x ah okay dhinacaana y waa okay wuxuu ku leeyahay culayskii verticalka ahay ama culayskii compressionka ahay ee columnkeena ayaa waxa uusan ku beegnayn oo ku dhahay okay center of gravity of the column bartamaha columnkeena kuma beegna okay sidoo kalena ma saarna lagu dhahay oo ma culays ma saarayo labada axis ba okay culayska ma saarna labada axis ba x iyo y midkoodna ma saarna waa ujeedaa okay soo marka maxaa dhacayo hadhow labada meelba waxaa ka dhacayo labada meelba hadhow waxaa ka dhacayo moment okay so okay momentahan hadhow marka muxuu noqonaa moment my ah okay kana muxuu noqonaa moment oo mx ah okay so marka laba moment ka hadhow marka waxaa loo design garay doonaa inuu laba momentigaas iska caabiyo columnyada cornerka dhaco ayaa categorygan soo gelaya okay oo right angle ka isku ku dhahay right angle ka okay columnyadaas waa columnyada geesaha xiga oo kala saan right angle isku yihiin mujeeda soo marka columnyadaas ayaa example u ah aan isla fiirino marka sawirka waa kanaha waxaa rabta dhaadi kan x u qaado
kana y u qaado okay culayska marka xaguu u dhacay xaggaana culayska wuxuu u jiraa distance ayuu u jiraa xaggan kalena distance ayuu u jiraa okay so marka labada dhinacba eccentric uu ka yahay okay labada dhinacna hadhow maxaa ka imaan doono momentiyaal ayaa ka imaan doono okay wuxuu ku leeyahay corner columnska ayaa example u ah noocyadan okay waa columnada geesaha dhaca okay sababtana waxay tahay beamkan beam kale oo balance gareyn lahaay hadda lama haayo kanna beam kale inta ka balance gareyn lama haayo so marka labadan beam oo geesaha ka jira waxaa dhacayso in momentiyaal ay generate gareeyaan okay marka hadhow marka waxaa loo design gareynaa columnkan as a biaxially eccentrically loaded column waxaan rajeynayaa saaxiibayaal inaan si fiican iskula fahnay